Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamay walaalahayga asxaabteyda dhammaantiin waan salaamayaa. Soo dhawaada bartaad nagala socotaan waa Sahras Channel. Soo dhawaada walaalaha qaaliga maanta qadadaas ayaan sameeyay quruxda badan. Inaba caadi ma ahan. Haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh, haddii aad hore noola joogtayna like iyo comment iyo share la wadaag asxaabtaada. Sida aan u sameeyay hilibka lugta ah oo sida ay ugu soo baxay quruxda badan dhadhanka leh ayaan in la wadaagayaa. Soo dhawaado hilibkaas foornada ayaan ku kariyay, sida ayuuna igu soo baxay macaanka lagama sheekeyn karo. Soo dhawaada marka jikada ayaan tagaynaa, sida aan u kariyay iyo inta shay oo aan ku daray ayaan in la wadaagayaa. Maasha Allah asxaabteyda, halkan waxaan ku haystaa lug ari, halkan waxaan ku haystaa carfiska iyo wixii aan marin lahaa. Marka waan in la wadaagayaa. Waxaa xiirta baruurta ayaan ka jarayaa, kadibna waan jeexjeexayaa. Sidaas ayaan u jeexjeexayaa, waana dulduleelinayaa waayo waxaan haystaa tuun aan soo jeexjeexay. Tuunta ayaan rabaa inaan gelgeliyo meelaha dulduleelada aan hadda midid ka sursurayo. Marka ila socda haddee fiidiyowga ilaa dhamaadka fiirso. Marka aan soo wada dulduleeliyo waa aragtaan meel kaste. Waxaan soo shiidayaa yaanyadii iyo basal iyo waxyaabihii kale. Tuun ayaan soo shiitay, sida ay igu soo baxday. Caana garoor yarna waan ku soo daray. Haddana waxaan ku darayaa carfiskii. Waxaad carfis haysata adiga ayaad isticmaali kartaa. Maraq digaag, xawaash isku dardar cusbo, waxyaabahaas ayaan ku soo darsaday. Caana garoor yarna waan ku daray. Haddana liin ayaan ku tuujinayaa, jeex liin ah. Halkan waxaan ku haystaa tuuntii aan soo jeexjeexday. Meelaha dulduleelka ayaan gelinayaa oo hilibka aan kasoo dulduleeliyay. Marka tuunta hadhow lama arkayo, ku dhex milmaysaa, way ku dhex baaba'aysaa. Okay, sidaan u sameynaayo iyo waxyaabahan ku xirxiraayo iyo dila soco fiidiyowga ilaa dhamaadka daawo. Ma dheero 1 2 3 waan soo gaagaabiyay. Marka maasha Allah asxaabteyda waad fahanteen aan filayaa. Tuuntii waan wada gelgeliyay. Waxaan soo dhigtay birtii aan foornada ku gelinayo aluminium ayaan soo dhigtay. Waraaqadii foornada ayaan soo saartay. Lugtii hilibkeeda ayaan soo dhex dhigay. Hadda waxaan marinayaa marka xawaashyadii yaanyadii aan soo shiitay. Wixii oo dhan ayaan ku daraa, aan dusha ka marinayaa. Si fiican ayaan gudaha u gelgelinayaa. Meelihii aan ka jeexjeexay oo midida aan gelgeliyay ayaan gudaha u gelinayaa. Waa fahanteen aan filayaa. Kadib haddana waxaan u gudbinayaa dhanka kale. Labada dhinacba waa in aan si fiican ugu mariyo carafta iyo dhanaanka iyo waxyaabaha oo dhan inuu wada qaato ayaa loo baahan yahay. Ma fahanteen? Marka waa ka asxaabteyda sidaas ayaan u marinayaa. Waan wada marinayaa, waxba kama reebayo. Yaanyadii iyo batarkii iyo wixii hadhowna dib batar baan ka marin doonaa marka insha Allah. Ka faa'iidaysi wanaagsan. Qof kasta ayaa sameyn kara. Waa hilib aad u macaan. Inaba caadi ma ahan. Si fiican oo aad u macaan ayuu ku soo baxay. Markii aan wada mariyay waxaan soo qaatay waraaqad kale, dusha ayaan ka saaray. Waan ku soo gudiyay tii kale ayaan ku xirxirayaa. Inuu meel ka banaanaado looma baahno. Waayo inuu isaga iskariyo biyaha uu dhalay iyo dhacaankiisa iyo carafta iyo wax oo dhan inay isku bislaadaan ayaa la rabaa. Sidoo ku soo baxa ultimadana waan isla arkaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Aluminium ayaan haddana ku sii xirxiray. Sidaas ayaan foornada ku gelinayaa. Kor iyo hoos ayaan ka shiday. Markuu ka soo baxaan isku soo laabanayna insha Allah. Waa kana asxaabteyda markii aan foornada ka soo saaray sidaan ayuu igu soo baxay. Bal ila daawo. Wuu qoyan yahay weli. Aniga qoyaanka ma jecli badan. Waan ku yar celin doonaa. Hadda diyaar waayo, wuu bisil yahay. Waa ka fargeetada sidaas ayuu u soo raacayaa. Haddii aad rabto sideedaad ku cunaysaa, haddii kale waad yara qalajinaysaa. Aniga hadda batar ayaan marinayaa, waana ku celinayaa foornada. Wuu ii yara angagayay, naashif ayaan ka yara dhiganayaa.